السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يا دمانتين انت channelka ku xiran iyo inta kalaba dhamaan muslimiinta oo dhan dhamaan inta luqadeeda ku hadlaysa Soomaalida waan salaamayaa dhamaantiin kusoo dhawaada channelka insha Allah. Waxaan idin salaamayaa salaantii dadka muslimiinta isku salaamayeen masha Allah. waxaan idin soo dhaweynayaa laba shay oo rasuulka amaanay calayhi salaatu wasalaam uu yiri waa shifaa waa dawo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadaas oo ka mid yahay xabarashaad iyo maxaa la yiraahdaa dacarta. labadaas waa dawo ayuu nabi maxamed yiri calayhi salaatu wasalaam. marka anaga oo ka qaadanayna xabarashaadka amba xabarashaadka ka qaadanayna waa kan xabarashaadku waa kaasi insha Allah. waa isagoo yar cascas insha Allah noocyo kala jira. maanta marka waxaan rabaa in aan ka hadlo qofka doonaya inuu uur qaado amba isku diyaarinaya inuu uur rabo amba doonaya inuu ukuntiisu kubocdo amba ay adkaato amba ay korto. waxa weeyaan ukunta dadka bini'aadanka ukun waxaa jirta iska huruda oo shaqaynayn. ukun waxaa jirta kolkaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala kolkaaba ilmaha qabata. ukunuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kala nooc. kolley waxa weeyaan dhibaato ayaa jirta ukuntu haddayna kolkaaba ilmaha qabsanayn amba waxa weeye ilmaha ayna qaadayn meeshaas waxa weeyaan dhibaato ayaa taala. marka insha Allah waxaan idin waaninayaa inuu qofka bini'aadankii waxa weeyaan marka uu maadaragta rabo inuu ilmo qaado inuu isdaweeyo amba inuu is eego kolley sabab ayaa jirta waxaad dib u raajinaysa. marka insha Allah waxa weeyaan maanta waxaan rabay insha Allah in aan ka hadlo xabarashaadku marka faa'iido badan ayay leedahay. nabigeena ayaa inoo amaanay calayhi salaatu wasalaam. xabarashaadku wadano badan ayaa ka baxaa amba wadano badan ayaa lagu hayaa sida Asia, Africa iyo Europa way yaalaa. marka intaasi waqtiyadii hore Asiadaas ayuu ku badnaa. marka insha Allah meel walba maanta waa laga helayaa xabarashaad. marka insha Allah sida ugu wanaagsan haddii aad u qaadatid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuugu darayaa awlaad saalixa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu siinayaa maadaama nabigeenu amaanay calayhi salaatu wasalaam. xabarashaadku faa'iido badan ayay leedahay. waxa ay leedahay oo kale ukunta iyo raxmka ilmagaleenka way safaynaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha way kaliin garaynaysaa way hagaajinaysaa si ay waxa weeyaan waxay ugu banaynaysaa siduu qofku ilmo u qaado amba ukuntiisu ay kor ugu kacdo amba ukuntiisu ay adkaato ayaa xabarashaadku hagaajinaysaa. ilmagaleenka ayay nadiifinaysaa way hagaajinaysaa si uu halkaa ilmo ugu abuurmo ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay. xabarashaadka nabigu cuna calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan xabarashaadkaasi waxa weeye meesha ayay nadiifinaysaa. marka waxa weeyaan intaanad uurka qaadin inaad cunto xabarashaadka ood isticmaashid waxa weeyaan faa'iidooyin kale ayay leedahay. calcium baa ku jirta, waxa magnesium baa ku jirta, waxaa ku jirta xadiid baa ku jira wax badan. fitamiinaadka oo dhan fitamiin ka maqan ma jirto. fitamiin A baa ku jira, B baa ku jira. marka waxa weeyaan dhammaan C baa ku jirta. dhammaan fitamiinada oo dhan waad ka helaysaa wax ka maqan haba yaraatee ma jirto. laakiin maxaan ka hadlaynaa waa inta aanad uurka qaadin inaad cabtid. waxaa kale nidaamisaa dhiigaaga amba caadada haddii khalkhal ku jirto way hagaajinayaan. waxa weeyaan markaste haddii ay dhibaato kugu hayso dhiigu hadduu dhibaato kugu hayo amba kolba waqti iska imaado uu waqtigiisa caadiga ka calashaan khalkhal ku jiro uu isdaafsan yahay uu hagaajinaysaa maxaa la yidhahdaa xabarashaadku hagaajinayaa. marka fitamiinaad badan ayaa ku jira ha laga faa'iidaysto. macdan badan oo aad u wanaagsan ayaa ku jirta xabarashaadka. waxa weeyaan waxay tandiiminaysaa ay hagaajinaysaa caadada ayay hagaajinaysaa. qofka hadduu caadadiisu hagaagtana waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa waxa u sahlan amba ugu wanaagsan amba ugu fudud inuu uur ka qaado. marka waxa weeyaan
in aad cabtid intaanad uurka qaadin ayaad isticmaali kartaa xabarashaadka. oo waxa weeyaan waxay nidaaminaysaa caadada, ayay nidaaminaysaa hormoonaadkaaga, ayay hagaajinaysaa. waxa weeyaan potassiumna waa laga helaa, oo waxa weeyaan potassiumka laga helo muuska ayaa ku jirta. fitamiinka maqani ma jirto. marka insha allah ha laga faa'iidaysto fursadaha qaaliga. wax badan ayay ka duwan tahay maanta, laakiin waxaan soo qaadanaynaa xabarashaadka. waxaan usoo qaadanaynaa uurka ayaan usoo qaadanaynaa. maaha markuu qofku uurka qaado, maaha kabacdi, waa intuuna uur lahayn, before, qablo, horteed in aad ka cabtid weeyaan. waxoo kale oo ugu wanaagsan yahay ninka iyo naagta wuu wanaagsan yahay. ninkana u fiican awood ayuu siinayaa, gabadhana waxa awood ayuu siinayaa. waxa ilmagaleenkana u kalin garanayaa, awoodna way yeelanaysaa. wuxuu kaloo u sameynayaa jirka qofka, wuxuu u sameynayaa nashaad oo kale, oo waxa weeyaan firfircooni ayuu ka dhigayaa ninka iyo naagtaba. ragga qudhooda inay cabaan baa u fiican. waxa weeyaan iyaga qudhadooda waxa weeyaan awood badan ayuu siinayaa. si uu maxaa leerda wuxuu u awood siinayaa si uu ilmo u qaadi lahaa, gaxaadkiisu ilmo u qaadi lahayd ayuu awood u siinayaa isagana. marka insha allah labadu way cabayaan. waxa weeyaan waxaad isticmaalaysaa wiigii 2 jeer. waa inta horteed maxaa la yidhahdaa aanad uurka qaadin. waad fahamteen baan u malaynayaa. waa inta aanad uurka qaadin ayaad cabaysaa. dhibaato uma keenayso caadada, dhibaato uma keenayso caadada. way hagaajisaaba oo nadiif ayay ka dhigaysaa ilmagaleenka iyo maxaa la yidhahdaa dhiigoo dhan bay ka nadiifinaysaa. waa sida xulbada oo kale, maasha allah. marka waxa weeyaan qofku in uu ku dadaalo, ninka iyo naagta wada cabaan. weegii 2 jeer haddaad cabtid, labadii weeg aad 3 jeer iska cabtid adoona isku badinayn. waana tusi doonaa qiyaasta insha allah iyo sidaad u isticmaalaysid. waxaa kaloo halkan inoo taala timirta inoo taala. timirtu aad bay u barako badan tahay. waa kii maxaa la yidhahdaa maryam ay cuni jirta timirta. ilaahay subxaanahu watacaala amba rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan ayaa laga soo wariyey asxaabta timirta. qofka timirta cuna markuu qofku uurka leeyahay, ilmo wuxuu dhalaa, ilmo waxay maskax fiican oo kaleebara amba ilmo maasha allah maskaxdiisu aad u fiican tahay ayaa maxaa la yidhahdaa ilmahaasi noqdaa caloosha ku jira. markaa timirtu aad bay u fiican tahay dumarku markay uurka leeyihiin. laakiin maanta waxaan sameynaynaa intayna uurka yeelan maxay sameynayaan si ay ilmo u helaan oo ay calashaan u dadaalaan. maxay sameynayaan sidan soo socota ayay sameynayaan. xaba irshaadka iyo timirta ayaa la isku darayaa, iyo caanaha ayaan isku daraynaa. marka waa maxay xaba irshaadka iyo tiro dhiman oo timira ayaan isku daraynaa. amba 3 baan isku daraynaa, amba 7 baan isku daraynaa. markaan intaa isku darno oon isku darno waxa weeyaan iyo caanaha weegii maalin haddaad iska cabtid, maasha allah adigii odagaada wada cabtiin. ilaahay waxaan idiga rajaynayaa insha allah biidni illaahi kariim in ilaahay awlaad saalixani siiyo. marka qof kasta oo dadaala ilaahayna waa caawiyaa. laakiin haddaad iska fadhiisatid oo tiraadid waxba ima hayo ee ilaahay baa sugayaa. alxaraka lahaa baraka, dhaqdhaqaaqu uu fiican yahay, baraka ayuu leeyahay. marka carabta waxay tiraahdaa alxaraka lahaa baraka. marka insha allah qofku inuu dadaalo aad bay faa'iido tahay. qofku ma inuu fadhiyo inaad ilaahay baa siin doona awlaad. dabcan ilaahay awlaad isaga bixi, laakiin wuxuu ku yiri dadaal, wuxuun baa jiray dadaal ayuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. markaa firfircoonida iyo dadaalku iyo caafimaadka ka shaqaysid aad buu wanaagsan yahay. waxaa kaloo igulaga talinayaa qofku intuuna uur qaadin folic acid. folic acidku aad buu fiican yahay. waxa weeyaan isaga qudhadiisu ilmagaleenka uu adkeeyaa, ilmaha waxa weeyaan uu adkeeyaa. kolley waana la siiyaa. dumarkeena soomaaliyeedna kolley xadiidka ayaa markasta ka yar. haddii uu jirkaaga fitamiinku ka yaryahayna ogow way adag tahay saad uurka u qaadid, amba fitamiinaadka haddii jirkaaga ku jirin. marka wax kasta oo fitamiina, dhammaan fitamiinada oo dhan waxaad ka helaysaa xabarashaad ayaad ka helaysaa. insha allah ka faa'iidaysta, waa fursad qaaliya. xabarashaadkaasi fitamiinada oo dhan dhammaan ayaa ku jira. marka adiga oona fitamiinba u cuninba kan ayaad ka helaysaa fitamiino badan. iyo timirtu maasha allah
iyo caanaha dhammaan fitamiinaad wey waxaa meesha yaala maanta ha laga faa'iidaysto fursadaha qaaliga marka inagu oonan meelo dhaadheer tegin amba wax badan aanan ku sameynba kharash isgelin dadka qaarkood kharash ayay galaan oo waxa weeyaan sida ilmo u heli lahayeen alxamdulilah ilmaha ilaahay baa bixiya laakiin ilaahayna dadaal buu ku yiri laakiin waxa weeyaan kharash iyo badanba adoona gelin bal xabeershaadka isticmaal oo bal insha allah kasoo waran maxaa faa'iido ka heshay iyo timirta iyo caanaha maxaad faa'iido ka heshay waa uurka horteed ayaan ka hadlayaa waxa weeyaan dhiig ayuu nidaaminayaa baari caadadaadu hagaajinayaa qofku hadduu caadadiisa hagaajiyo amba hormoonaadkiisu hagaagana uurka caladuul buu qaadayaa ilmo khayr qaban ilaahay baa niga rajeynayaa oo saalixa ilmaha markaad ilaahay weydiisanaysidna waa inaad ilaahay ka baridaa ilmo khayr qaba ilmo fiican ilmo wanaagsan oo 2 ragcadood tukataa ood ilaahay baridaa ood ilaahay weydiisataa ilmo saalixa sidoo kuu siiyo waxa weeye awlaadu lama yidhaahdo awlaadu waa fitno awlaadu waa fitno awlaad iyo adduunyadu waa fitno marka insha allah awlaadana inaan insha allah ilaahay la weydiisto kuwa aanan ku fitnaynayn ilaahay subxaana watacaala awlaada iyo maalku dhammaan waa fitna ayuu yiri inama amwaalukum wa awlaadukum fitna ilaahay subxaana watacaala maalkiina iyo awlaaduba waa fitna ayuu ilaahay subxaana watacaala leeyahay markaa ka faa'iidayso fursada qaaliga inta ayna calooshaada gelin awlaadu amba walad saalixa ilaahay weydiiso ilma intuuna calooshaada gelin ilaahay horta bari ilaahow walad saalixay siidhe ilaahow ilma aan caawiya amba ilma aan ku farxo amba ilma aan ku dego ilaahow isii baa la weydiistaa maaha ilmo uun lama idhaahdo ilmana dhiba ilaahay baa loo hoosgalaa amba ilaahay waxaad ka tirahdaa ilma aana i dhibin ilaahow isii markasta ilaahay waa la baryaa si uu ilaahay subxaana watacaala walad saalixa kuu siiyo waad ogtiin hameen walba ilaahay subxaana watacaala waa soo dhaadhacaa samada ayuu kasoo dhaadhacaa marka dadka ayuu yidhahdaa maxaad rabtiin ood weydiisanaysiin ayaa raba awlaad ayaa raba maxaa la yidhahdaa maal ayaa raba wax walba ilaahay janno iyaa raba marka insha allah ilaahay inaad dadaashid ood weydiisatid walad saalixa oo ducadana ku dartid iyo ducooyinkii rasuulku akhrisanaya calayhi salaatu wasalaam iyo ducooyinkii nebiyadii zakariya iyo ducooyinkii akhrisanaya oo dhan si duriyada saalixa aad u heshid ilmo markaad doonaysid ilaahay in badan bari waxa uu rasuulku sheegana ka faa'iideyso calayhi salaatu wasalaam sida xabarashaadka oo kale ka faa'iideyso waa uurka horteed ilaahay inuu calooshaada ku abuuro ilmo saalix oo khayr qaba oo adduunyada aad ku liibaantid oo adduunyada kugu anfaca insha allah iyo timirta sidee baan u samaynaynaa mise sidee baan uga faa'iideysanaynaa waxa maadaama ay fitamiinaad badan ku jiro qofka bini'aadanka kale uu iska cabi karaa caanaha iyo timirta iyo xabarashaadka uu iska cabi karaa dhibaato uma keenayo waxa weeyaan waad iska yareynaysaa laakiin qofku markuu uurka leeyahay inuu aad iskaga ilaaliyo weeyaan uur haddaad leedahay xabarashaadka inaad ka dheeraato weeyaan iyo qosdal hindiga marka insha allah sidee baan u sameynaynaa maanta waa halkan baan insha allah idigu tusi doonaa kusoo dhawaada halkan timir badan baa taala maadaama la odhanay tiro dhiman insha allah maxaan qaadanaynaa aniga waxaan rabaa 7 xabadood inaan qaato insha allah 3 baan halka ku hayaa 4 5 marka 5 baan ku hayaa 6 7 maasha allah 7 xabadood oo timir ayaan halka ku hayaa soo sax ma 7 xabadood oo timir 7 timiraat ayaan halkaa ku hayaa 7 xabadood oo timiran hayaa insha allah waxa weeyaan 7da iyo xabarashaadka iyo caanaha oo 2 koob ka dhigi doono insha allah ayaan isku ridqi doonaa insha allah waxaan ka saari doonaa lafta ku dhex jirta ayaan ka saarayaa waan yar nadiifinayaa oo yar clean gareyn insha allah markaas aan ridqi doonaa insha allah inta kalena waan iska xareynaynaa insha allah qofku hadduu rabo 3 xal buu ka dhigan karaa tiro dhiman insha allah si ilaahay subxaana watacaala awlaad saalixa kuga arsaaqo tiro dhiman ayaad ka samaysan kartaa waxa weeyaan in iyo xabarashaadkana insha allah waad qiyaasan insha allah isagana asxaabi wataa timirtii lafii waan ka saaray asxaabi wataa timirtii lafii baan ka saaray wakaa 7 xabadood ee timirtii
waan nadiifiyey oo waan clean gareeyey maasha allah. xabarashaadkana ku yara darsanayna insha allah, ha laga faa'iidaysto. asxaabay waka xabarashaadka maanta malqaacad yar baan ku dul darsanayaa. malqaacad yar weeyaan 2 koob oo caano amba 3 baad aanu 2 koob baan imika samaysanaya insha allah, iyo 7 xabadood oo maxaa la yiraahdaa timira, 7 xabadood timira iyo malqaacada oo xabarashaada ayaan isku darayaa insha allah. wakaasi waka xabarashaadkii iyo timirtii waan isku dhex daray maasha allah. haddaad doontid malab waad ku darsan kartaa, marka dambana caanaha ayaad ku radqi kartaa maasha allah. wax diidaya ma jirto. waxa weeyaan waa wada dawo, dhammaan waa la ammaanay, rasuulku waa ammaanay calayhi salaatu wasalaam. xabarashaadkii iyo timirtii baan isku darnay. wakaas kusoo dhawaada maasha allah. waka koob caana ayaan ku shubaynaa insha allah. waka koobka caani waan ku shubnay, waxoogaa waa ila yaraaday insha allah. 2 koob baan ka dhiganaynaa. waa caano caadiya, waxa weeyaan waa caano caadiya maaha caano dhanaan maaha. waa caano amba greenkaad ku samaysan kartaa amba bluekaad ku samaysan kartaa, dhibaato ma keenaya. caano unbaad u baahan tahay inaad ku samaysatid insha allah. koobka labaad baan ku shubaynaa marka insha allah. waka caanihii iyo timirtii iyo xabarashaadkii waan isku daraynaa insha allah. waan ridqaynaa, waad la socon doontiin insha allah, waanad ka faa'iidaysan doontiin fursadda qaaliga. hana marka maaragta la isticmaalo in la iloobin komadka dadkii ka faa'iidaystay inay soo sheegaan faa'iidada uu leeyahay xabarashaadku oo rasuulku ammaanay calayhi salaatu wasalaam. asxaabay waan ridqay wakaasi insha allah. qof walba koobkiisu iska cabayaa, waxa weeyaan maasha allah. dhibaato male haddii aad qofku uuna u lahayn uu iska cabi karaa. waxa weeyaan jirka oo dhan ay faa'iido badan leeyahay. fitamiinaad badan baa ku jira, lafaha uu fiican yahay, marka calcium badan baa ku jirta. ha laga faa'iidaysto insha allah. koobkaan ku shubanaynaa, waad arki doontaa qof walba waxa weeyaan koobkiisa ayuu cabayaa insha allah. kuwaas wataasi insha allah. wakaasi insha allah. waa timirtii, xabarashaadkii iyo caanihii insha allah. waa timirtii 7 xabadood iyo xabarashaadkii iyo caanihii aan isku daray maasha allah. ha laga faa'iidaysto, hana ogaado waxaan ka hadlayo waa qofku markuuna uur lahayn uu amba caadada ka meedhanayo amba caadada uu leeyahay ayay kaniin garaynaysaa. ilmo galeenka iyo waxa ukuntana way adkaynaysaa, wayna korinaysaa, way kobcinaysaa. marka insha allah ha laga faa'iidaysto. dumarku raggooga inay u sameeyaan ayaa aad u faa'iido badan tahay. waxa weeyaan dhulkan qurbaa, lafa xanuunka iyo dhibaato badan baa jirta. ha cabaan, ragga ha loo ridqo, ha la siiyo. khaasatan waxa weeyaan dadka caruuska insha allah faa'iido badan bay ka helayaan iyo awood badan iyo nashaad badan ayay ka helayaan insha allah. aniga insha allah kama sii sheekeyn karo ilaa daakhiliga amba gudaha kama sii sheekeyn karo, oo laakiin intii sara idii sheegay faa'iido badan buu leeyahay. ha laga faa'iidaysto maadaama nabigeenu inoo ammaanay calayhi salaatu wasalaam xabarashaadka iyo maxaa la yidhaha sabaarka oo waxa weeyaan dacarta ah. labadaba ha laga faa'iidaysto insha allah. kusoona dhawaada insha allah. maalintii hore waxaanu samaynay shaahiisii ayaan samaynay oo faa'iido u leeyahay macaanka insha allah. maantana ukunta amba ilmo galeenka ayuu faa'iido u leeyahay. uu kaliin garanaya, uu nadiifinaya, uuna caawinayaa qofku markuu ilmo doonayo ayuu caawinayaa. marka insha allah ha laga faa'iidaysto insha allah. waan wadayaa insha allah. xabarashaadka waxa weeyaan dhibaatada uu leeyahay ayaan insha allah ka hadli doonaa mararka soo socda insha allah. channelkana lagu soo dhawaado insha allah. subscribe-ka iga iloobina walaalihiina dhammaantiin walaalaha waxaan ka codsanayaa inaad subscribe-ka ii saartiin insha allah, iyo aad idinkuna ka faa'iidaysatiin layga comment qurux badan oo wanaagsan iyo sida aad uga faa'iidaysateen insha allah channelka insha allah. dad badan waan arkay komadadooda aad bay u mahadsan yihiin, wayna ka faa'iidaysteen, aad bay noogu faraxsan yihiin insha allah. barnaamijyo badan oo kasii fiican insha allah ayaa inoo soo wadaa insha allah. hana laga faa'iidaysto. wax kasta oo diinteenu ina fartay ayaan ka hadli doonaa insha allah. hana laga faa'iidaysto insha allah.
dhammaantiin waan islaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.